السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saaxiibada qiimaha badan aada idiin salaamay meel walba caalamka joogtaan isku soo noqod wanaagsan muuqaalkeena maanta waxaa uga hadli doonaa insha allah 10 xanuun oo ah 10ka xanuun ee ugu badan ee dhimirka ku dhaco isla markaasna bulshadeenna iyo bulshooyin badan ee caalamka aad ula dhibaataysan yihiin waxaana isla ogaan doonaa insha allah xanuunadaas noocyada ay kala yihiin iyo qaababka guud ahaan xalka loogu heli karo iyo weliba ahmiyadda ay leedahay qofka inuu ogaado inuu haddii asaga xanuunadaas uu wajahay is ogaado haddii qof ehelkiisa ama asxaabtiisa ka mid ah uu wajahay uu ogaado kadibna caawin loogu raadiyo si degdeg ah kusoo dhawow daawashada barnaamijkeena maanta magacaygu waa cadnaan waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay daweynta qaliinada kelyaha iyo kaada mareenka iyo taranka ragga haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqatay barteenna kusoo dhawow gacmo furan ee ka mid noqo saaxiibada nagu xiran kanaalkana subscribe saar intaas kadib xanuunada ku dhaco dhimirka runtii bulshadeenna in badan oo ka mid ah way inkiraan sababtay u inkiraanna waxaa waaye arrimo kale ayaa loo saariyaa qofka asagoo dhimir la dhibaataysan u baahan caawin mid daawo ah iyo mid la talin ah ayaa waxaa dhacayso in badan qofkii in laga daba wareejiyo waxyaabo aanan markaas daawadii ama bogsashadii uu ku gaari lahaa xanuunkaas aanan gaarsiinaynin marka sida badan xanuunada ku dhaco dhimirka waa mid ka mid ah xanuunada jirka bini'aadanka ku dhaco wuxuu la mid yahay xanuunada ku dhaco xubnaha kala duwan wadna xanuunsaday beer xanuunsaday laf xanuunsatay maskax xanuunsatay sidaas si la mid ah ayuu u yahay xanuun dhimireed una baahan yahay daawo iyo ogaanshiyo xanuunkaas xilli hore waxyaabaha ugu badan ee qofka ama bulshooyinka caalamka ku keeni karo xanuunka dhimirka ah 3 ayaa lagu soo koobaa waa mid ugu horeyso arrin la xiriirto dhanka arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha dhaqaale yari muxuu ahaa baahi saboolnimo iyo wax la mid ah dhinaca la xiriiro caadooyinka iyo dhaqanka bulshadaas dhaqanka ay leedahay dhaqanada qaarkood qofka dhimir ayuu ku qaadi karaa ama xanuun dhimireed ayaa kula dhici karo dhanka saddexaadna waxaa waaye arrimo ku imaado ama ay sababtay deegaanka muxuu ahaa deegaanka qaabka loo nool yahay waxyaabaha la cuno waxyaabaha ma arkino la isticmaalo shaqooyinka yani waxa kugu hareereysan ama bini'aadankeena waxyaabaha ugu hareereysan oo ku sugan markaas deegaanka ku noolnahay oo ka kooban dadkii iyo waxyaabihii ma arkino deegaanka ka jiro intaas ka bacdi xanuunada dhimirka runtii waa wax aad iyo aad u fara badan waana takhasus weyn oo ka mid ah takhasusaadka looga takhasuso caafimaadka waxaa la yidhahdaa psychiatric medicine marka annaga maanta muuqaalkan ama fadhigan ma ku koobi karno dhammaan xanuunada ku dhaco dhimirka laakiin waxaan kuugu soo koobay oo keliya 10ka ugu caansan ay la tacaalaan ama la daala dhacaan bulshooyinka caalamka badankood oo ay soomaalidana ka mid yihiin markaas haddii aan soo qaadano xanuunka ugu horeeyo wuxuu noqonayaa waxa la yidhaahdo anxiety disorder waa xanuunada cilaaqaadka la leh cabsida iyo wixii la xiriiro marka noocyo kala duwan ayay noqon karaan balse 3 ugu badan waxaa waaye qofkii in uu cabsi guud dareemo wuxuu ka cabsanayaa asaga nafsadiisa ma yaqaan waxa uu ka cabsanayo laakiin mar walba baqdin walwal iyo ma arkino waxa hayo murug uu ka cabsanayo waxyaabo uu og yahay iyo waxyaabo uusan ogeyn intaba nooca labaad waxay noqon kartaa cabsi qofka uu ka cabsanayo bulshada social anxiety ayaa la yiraahdaa wuxuu ka cabsanayaa inuu dad la dhaqmo inuu dad la hadlo inuu dadkii soo dhex galo taasoo keenaysa marka qofkii inuu dadka ka baxo oo keligiis inuu ahaado jecel yahay tan saddexaad ee ugu badan oo xanuunada cabsida lala xiriiriyay ahna waxa waaye wax la yiraahdo panic disorder waxa waaye xilliyo qaar ayaa qofka waxa ku imaanayso cabsi degdeg ah wadna garaac fara badan wuxuu dareemayaa cabsi wax uu ka cabsanayna ma yaqaano uu isxirxirayaa indhuhu taagaya uu fiigtoonaya mararka qaarna wuxuu noqon kartaa acute waqti yar inay hayso mararka qaarna aad inay ugu soo laalaabato marka dhammaan noocyadaas kala duwan ee cabsida ah qofka haddii lagu arko ama la ogaado ama uu kuu sheegto qof saaxiibka ah ama walaalka ama ehelkaaga ka mid ah cabsi noocaas ah oo kusoo laalaabato inay jirto qofkaas wuxuu u baahan yahay in diirad gaara loo yeesho isla markaasna caawin loo raadiyo nooca labaad ee caanka ah waxaa waaye waxa la yiraahdo niyadjabka ama depressionka runtii waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu faraha badan ee lagu arko xanuunada dhimirka qofka uu niyadjabsan yahay niyadjabkaasna waxyaabo fara badan ayaa ku keeni karaan hadba marka wixii ku keeno niyadjabka waa sababtii ku keentay ee ka dambeysay laakiin wuxuu noqon karaa niyadjab waqti yar hayo qofka uu dareemayo murugo uu dareemayo daal uu dareemayo ma arkino caabonaan la'aan yani wax motivation ah ma lahan inuu wax qabto dhan ma rabo
xuro inuu jiifo lazinimo wax walbana quus ayuu ka dareemayaa marka waxay noqon kartaa mid waqti yar jirto iyo waxay noqon kartaa mararka qaar persistence muxuu ahaa depression waa mid waqti dheer qofka la jirto haddii marka aad ku aragtid qof ahaan jiray qof active ah shaqo badan wax soo saar leh furfuran dadka dhex galo farxad badan laakiin waayahan dambe inuu ma arkin inuu dareemayo niyad jab inuu dareemayo muxuu ahaa murugo inuu keligiis yahay caajis fara badan hurdo badan waxqabad la'aan motivation la'aan farxad la'aan qofkaas iyadana waxaa la rabaa in laga agdhawaado la wareysto waxa uu dareemayo laga dhageysto kadibna caawin lala raadiyo oo markaas caafimaadkii iyo dhakhtarkii ku habboonaa lala fiiriyo markaas xanuunka saddexaad markaas ee caanka ah waxaa waaye stress waxa aan idhaahno stresska waa walwalka marka badanaa calaamadahan way isku yara eg yihiin midda koowaad waxaan soo dhahnay cabsida midda labaad waxay ahayd niyad jabka midka saddexaadna waxaa waaye walaac qofkan walaac ayuu dareemayaa marka noocyada walaaca badanaa laba nooca ugu waaweyn noocna waxaa waaye walaaca degdega ah qofka arrinaa la soo gudboonaatay arrimahaas marka way badnaan karaan arrin shaqada la xiriirto arrin dhaqaalaha la xiriirto arrin waxbarashada la xiriirto arrin mushkilad yar oo ma arkin oo buuq u galay qof uu jeclaa niyad jab yar ku dhacay waxyaabahaas oo dhan stress ay ku keeni karaan laakiin stresskaas waxaa la yidhahdaa acute stress waqti yar uu jiri karaa qofka haddii ma arkin oo la talin uu helo ama hurdo ku filan uu helo haddii uu waxyaabahaas inuu is-ilowsi isku dayo waxaa laga yaabaa maalmo yar gudahooda in ka yar 3 isbuuc inuu caadi kaga noqdo nooc labaadaa jira marka oo stresska ka mid ah oo ummadda Soomaaliyeedna ee aad iyo aad ma arkin oo caan ugu yihiin noocaas waxaa la yidhahdaa PTSD ama post traumatic stress disorder waa dhaawac qofkan gaaray dhaawacaas gaaray ama dhaawac uu la kulmay ama arrin uu la kulmay awgeeda walaac iyo walwal uu ka qaaday jiro ayuu isku bedeli karaa marka stresskaas noocyo badan noqon karaa markii sababta hadda aan ku dhahay Soomaalida aad ay ula kulmaan ama ay u arkaan waxa waaye dalkeena waxaa ka jiro qarax ayaa dhici karo waxaa dhici karto qof in la dilo loo dilo aana qabiil loo dilo ma arkino jago in laga dilanayay ganacsi in laga dilanayay isku qabsi dhul yani siyaabo fara badan assassination inuu dhaco marka dadkii qof walba oo Soomaali ah sida badan wuxuu arkay qof la dilayo ama wuxuu arkay qof dhaawaca wuxuu la kulmay qarax ama qof uu jeclaa ayuu qarax ku waayay ama intaas oo dhan ma ahane dhibaato ayaa asaga soo gaartay markii uu yaraa ayaa ma arkino mushkilad ayuu kala kulmay deegaankii uu deganaa tusaale haddii aan mid positive ah mararka qaarna xumaan karo aan soo qaadano waxa waa ilmaha markii dugsiga quraanka dhiganayaan macallimiintii xilliga hore ilmaha aaday u dili jireen yani tumis aanan caadi ahayn oo jirkooda laga yaabo inuu dhiig ka yimaado ayay garaaci jireen cunugii marka stresskaas uu ka qaado qaar badan oo kamid ah laga yaabo quraankii inay u nacaan qaar badan laga yaabo dugsigii inay u nacaan dhinaca kale gabadha iyadoo yareed waxa dhibaato ay la soo kulmi kartaa in hadda ka hor la kufsaday oo kale haddii kale in jirdil xooggan oo ku dhacay oo kale wiil ama gabar ama qof kale wuxuu aaday tahriibkaas intii uu ku guda jiro ay dhibaatooyin fara badan kala kulmay oo kale waxyaabahaas oo dhan waxaa la yiraahdaa PTSD ama post traumatic stress disorder qofkana waxay ku yeelan doontaa muxuu ahaa mareebtoonto oo kale yani inay nabar ku yeelato qalbigiisa uusan weligiis iloobaynin haddii mararka qaar xitaa waxaa laga yaabaa inuu gaaro heer markii uu soo xasuusto tacadiyadii ama dhibaatooyinkii uu la soo kulmay ama dhaawacyadii iyo dhibaatayntii iyo qaraxyadii ama wixii uu hadda ka hor arkay markaasaa laga yaabaa inay cabsi u timaado uu dareemo dhidid inuu ka yimaado garaac wadnihiisa inuu bato jarays inuu ku dhaco iyo wax lamid ah waxaa dhici karta qofkaas dhaawacyadaas ama stresskaas meelaha uu kala kulmay oo dhan wax walba la xiriiro inuusan u dhawaanin qofka hadda ka hor laga yaabaa shil gaari inuu galay shil gaari maadaama uu galay gaari oo dhan inuu ka cabsado laga yaabaa ama shilkaas markii uu galayay gaariga meesha uu ka fadhiyay kursigaas inuu ka fogaado laga yaabo san wiligiisba fariisanin maxaa yeelay cabsi ayay ku leedahay wuxuuna dareemayaa in oo dhaawacaas mar kale inuu gali karo u maleynaya marka haddii aan idhaahno waxaan ka hadlaynaa oo keliya PTSD keligeeda macnaha waxay naga qaadan kartaa mowduuc ama labo ama saddex laakiin intaasaan ku ekeenayna marka waxaa rabaa inaan ku fahamsiiyo PTSD wuxuu soo galayaa kategoriga ama qaybta stresska ama walaaca qofka marka walaacyada haddii lagu arko calaamadahaas hadduu walwal dareemayo haddii walaac uu ka dareemayo haddii cabsi badan uu ka qabo hadda ka hor jug ama dhibaato ama wax gaartay
waxaa la rabaa qofkaas inaa fahamtid isla markaasna aa u raadisid muxuu ahaa daryeel iyo arrin caafimaad. kan afraad ee markaas ugu badan waxaa waaye waxyaabaha la yiraahdo substance use oo kale ama isticmaalka maandooriyayaasha ama daawooyinka daroogooyinka qaadka balwadda noocyada kala duwan. qofkii asagoo og ayuu ma arkin oo isticmaalaya. marka hadda qodobkan dalkeena wuu kusoo badanaya caalamkana aad ay mushkilad uga tahay. muxuu ahaa wadamada kale qamri iyo daawooyin xididada laga qaato ka jiraan, laakiin hadda Soomaaliya oo kale waxaa soo bilowday daawooyinka loo qaato xanuun jibiyaha oo noocyada la yiraahdo opioidska oo waaweyn, bethadinka, tramadolka, fentanylka, narcotics ayaa la yiraahdaa. daawooyinkaas morphine kamid ah. qofkii markii uu qaato wuxuu dareemayaa hurdo, wuxuu dareemayaa farxad, wuxuu dareemayaa reen dareemahaas yarka ah oo dhowrka saacadood jiraayo ayuu marka wuxuu farxad ka dareemayaa. farxadaas uu rabaa marka mar walba inuu dareemo, waxaa dhacaysa marka in uu la qabtoomo macnaha oo qabatin ay ku noqoto. arrintaas marka waxaa la yiraahdaa substance use, waa qayb weyn oo ka mid ah xanuunada dhimirka. qofta marka maxay u horseedaysaa haddii uu la qabsado isticmaalka waxyaabahaas maanka dooriyo? daraagay noqon kartaa, waxay kale noqon kartaa daroogo caadi ah oo jaadkii iyo balwadihii kale noqon kartaa. haddii uu la qabsado qofkii waxaa adkaanayso inuu dembi u horseedo. siyaabo walba uu ku heli karo waxaas inuu ma arkin raadiyo, dhibaatayna u sameynaa, qof uu dhacayaa, qof uu dilayaa, kaliya shilimaadka jeebkeeda ku jiro uu la baxo, mobile uu ka dhacayaa, jidgooyin uu sameynayaa. in badan falalka amni daro ee ka dhacayo dhulalkeena waxaa qayb weyn ka mid ah arrin dhimir waaye. dhimirkaasna waxaa waaye dadkaas waxay qabatimeen arrimahan oo substance use ka la yiraahdo. marka waxay u baahan yihiin daweyn, u baahan yihiin daweynkaas maxaa waaye in waxaan laga joojiyo. markii waxaan laga joojiyana waxay keeni doonaan withdrawal symptoms waxa la yiraahdo. joojintaas laga joojiyo waxaas oo jirkooda qabatimay darteeda ayaa xanuuno kale ugu dhici doonaan. xanuunadaas waxaa ka mid ah hurdo la'aan, wadna garaac badan, waxaa laga yaabaa shuban inuu ku dhaco, madax xanuun joogto ah, ileen wixii ay tabayaan waxaasaa jirkooda nasasho iyo farxad uu ka heli jiray. muddadaasaa marka meelaa lagu xareynaya, daawo iyaga loo bilaabaya. maxaa laga daaweynayaa? joojinta wixii xumaa ay joojiyeen, dhibaatooyinka ay ka dhaxleen ayaa la daaweynayaa. kadib markii muddo la daaweeyo waqti ay qaadan kartaa, isbuuc noqon kartaa, 2 isbuuc noqon kartaa, markay ugu yar tahay 3 bilood 6 bilood sanadna way gaari kartaa. marka waa qayb weyn oo ka mid ah waxyaabaha noo horseedi karo caafimaad darida dhimirka. kan shanaad oo runtii aad ka markino ugu badan bulshooyinka caalamka waxaa waaye waxa la yiraahdo bipolar disorder. dadkeena Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah dadaa garanaysa laga yaabaa inay bipolar qabaan. bipolar marka maxaa waaye qofkan maanta la kulmaysaa wuxuu dareemayaa niyad-jab, depression mood ayuu ku jiraa. maanta saakay niyad-jab uu dareemayaa, dad ma la hadlaynin oo aad u markino haddii alla hadashada laga yaabo inaad dhibaato kala kulantid. galabta ama dhowr saacadood kadib isla qofkii oo waxaa arkaysaa sida mania oo kale iska faraxsan, qoslayo, talkative, hadal fara badan, activity badan. war maxaa ka qaldan qofkan? macnaha miigu ciyaaraysaa haddii salaanta anigu kugu soo taagay ama ku salaamaya salaanta iga qaadi weyse, haddana maxaa farxadan waxa ii keenaysa? isku dhaca meesha ka imaanaya. bipolar ayaa la yiraahdaa. qofka maanta wuu faraxsan yahay, biri wuu xanaaqsan yahay. saaki waa kaftamaysiin, waa baashaalaysiin, caaw kula dagaalayaa. haddaa ii soo dhawaatid qoortaa kaa jaraya ku dhahaaniyo afaareyga ka bax macnaha. marka waxay u baahan tahay inaad fahamtid qofkaas wuxuu iska dhigdhigoyo ma ahan wax asaga ma arkin oo adig kuu la dan leeyahay, ma ahan kaliga, ma ahan saaxiibada kale, walaalaha kale, waalidka kale ayuu saas ku yahay. wuxuu u baahan yahay si hoose in ma arkin loo ogaado xaalkiisa. haddii lagu arko bipolarkaas oo ma arkin isbedbedelkaas haddii lagu arko oo moodka ah, mood kala duwan haddii lagu arko, qofkaas in lala raadiyo daryeel iyo daaweyn dhimir ah ayaa loo baahan yahay. xanuunka xiga marka waxaa waaye oo kan lixaad noo noqon doono xanuunada ilmaha ku dhaco, child and adolescence markino disorderska. xanuunada dhimirka oo ilmaha ku dhaco sida badan ilma qaara markino orod badan, ilma qaara iska caadi ah oo humble ah, ilma qaara maanta dhan wax haleynayo, wax ku ciyaarayo, wax ridayo, wax jibinayo, boodayo, inta ku ordayo, ilma kala dilayo, gacan qaad sameynayo. marka cunuga intuu yaray waxaa la rabaa inaad u fiirsatid. badanaa hooyooyinka oo cusub oo halka cunug dhalay ama cunugoodii labaad hadda wado ama dhalay badanaa ma fahmi karaan, laakiin hooyooyinka 5, 10, 8 dhaleen way kala fahmi karaan ilmaha. marka ilmaha waxaa la rabaa in aad loola socdo. cunuga xanuuno qaar oo dhimir ah waxaa jiraan oo yaraantiisa kusoo dhaco uu la weynaanayo.
marka xanuunada ugu caansan badana oo aadkana common ku ah waxa waaye xanuun la yiraahdo jiro ADHD oo kale attention deficit hyperactivity disorder iyo xanuun kale la yiraahdo autism xanuunadaas attention deficit ko kale cunugan wax attention ah ma lahan macnaha attention maxaa la yiraahdaa qofkii inuu fariisan karo si proper ah muddo dhowr daqiiqo ah cunugii hadduu markii uu soo gaaro 2 sano ama 3 sano fariiso wariya haddii la yiraahdo muddo 5 daqiiqo ah inuu fadhin karo caadi uu markiino haddii la yiraahdo fariiso kadibna haddii loo fasaxo ciyaarti wax maqli karo macnaha activity-giisana oo activity of violence wax dhibaatayna uusan ahayn marka ADHD go kale cunuga wax attention ma lahan wax focus ah ma lahan haddii aa wax yar diiradda saar raahdan wax yar u sharxi rabtid ama wax yar fahamsiin rabtid ma kula joogayo cunuga waa maqan yahay meel kale ilmahaas oo kalena badanaa waxa lagu arkaa hadalka ka soo daaho cunugii oo 2 jir ah waxa laga yaabaa hadallo basic ah hataa inuusan ku hadli karin waxa la rabaa waalidka inay fahmaan ama haddii aa familiga ka mid tahay oo guriga joogto cunugaas haddii aa aragtid inaa fahmi kartid lala raadiyo autism ko kale cunugii inuu unsocialized uu noqdo dadka ka dhaxbaxo hadaleynin hadalka uu ka soo daaho autism runtii waa mid ka mid ah waxyaabaha oo maanta community-ga Soomaalida ee ku nool wadamada qurbaha ah westernka qaybahooda kala duwan ee aad uga cabadaan marka autism-ka insha Allah maraan aan dul istaagina laakiin haddii oo la codsado waaye mowduucan autism-ka ah haddii aad danaynaysaan qaybta commentiga igu soo qora waa qiimeyn doonaa haddii autism dad badan ay codsadaan si gaar ah uga hadlaya maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay mid ka mid ah xanuunada ugu badan ee wax liiga soo weydiiyo khaas ahaan hooyooyinka ku nool qurbaha khaas ahaan Yurub iyo Mareykanka iyo Canada okay intaas ugu bixina marka ilmaha in loo yeesho muxuu ahaa focus ayaa muhiim inta yarihiin si gaar u fiirisid kan toddobaad marka waxaan ka dhigaynaa oo aad ka markino caan ku ah ummadda Soomaalidana badanaa ku badan xanuunka la yiraahdo psychotic disorder waxaa ka mid ah xanuun oo schizophrenia la yiraahdo waa nooc ka mid ah noocyada xanuunada ku dhaca dhimirka qofka mala awaalo ayuu ku nool yahay wuxuu dareemayaa hallucination wax la yiraahdo wuxuu sawirasho iyo environment wuxuu joogaa oo keena aanan ahayn waxa laga yaabaa inuu cod kor ah ku hadlo uu ka sheekeynayo waxyaabo adiga aanan markino meeshan hadda aan joogno ama aan fadhino ama waxaan ka sheekaysanay aanan qusaynin waxa laga yaabaa mararka qaar qofkii inuu leeyahay fikrado oo aanan markino nidaamsanayn macnaha fikradu wuxuu ku keenayaa oo adiga nafsadaada ka dhaadhici karin hadallo aadan fahmi karin hadallo oo asaga wato wuxuu ku furayaa tobigi adigoo kala hadal isle hadana topic kale uu galaya tobigi kale hadana mid kale uu kula sii galaya mid kale uu hadana sii furaya macnaha hal topic caadi ma ugu wada hadli karaysaan marka qofkaas oo kale haddii aad dareentid waa wax qof walbana ku dhici karo macnaha haddii aad dareentid ama qof ehelkaaga ama asxaabtaada ama aad ku aragtid qofkaas inaa caawin caafimaad aad la raadisid iyadana aad ay muhiim u tahay xanuunka xaga markaas wuxuu noqonayaa oo konsideedaad noo noqon doono xanuunka la xiriiro shakhsiyadda waxyaabaha la yiraahdo personality disorder xanuunkan marna wuxuu noqdaa borderline qofkii dabeecadihiisii iyo dad la dhaqankiisa maalmahan way sii xumaanayaan xaalad kale ayuu u gudbayaa wax la yiraahdo antisocial personality disorder antisocial waxa waaye qofkii dad maba la dhaqmi karaba qof ay heshiis yihiin oo ay maanta wada socdaan ama ay maanta isla shaqayn karaan ama ay wax isku fahmi karaan ma jirto keligii socod ayuu noqonayaa taasoo dhalinaysa marka bulshadii dhan inay markino farta inay ku fiiqaysaa dareemaysaa ninkaas ma la dhaqmi karo ninkaas ha isugu dhawaanin ninkaas wuxuu ku dhaho isaga yeel ama gabadhaas waxay ku dhahdo isaga yeel afaaraheeda ka bax waxyaabo noocaas oo kale ah qofka marka waxa dhacayo haddii uu wiil yahay ama haddii ay gabar tahay xiriir macnaha ma samayn karaan xiriir waxaan ka wadaa haddii wiil uu yahay oo kale gabar xiriir ma la yeelan karo oo relationship oo guur iyo arrimihiisa looga hadlayo haddii ay wada yeeshaanna mid jiraay ma noqon karo maxaa yeelay wax yar ma u dulqaadan karo very sensitive way emotional way emotionkiisa meelo adiga caadi kula hadalla aad ku kaftami kartid waxyaabo caadi aadan dhib u arkaynin qofkan sensitive ayuu u dareemayaa wuxuu u arkayaa in asaga ama arkino wax ka sheegaysid in asaga aa ula gol leedahay asaga aa ku caynaysid asaga ama arkino u sarbeebaysid waxyaabo la mid ah marka badanaana guurka way ka daahaan dadkaasoo kale waxaa dhacayso haddii ay gabar tahay ama hadduu wiil yahay xiriir oo sameynaya oo lagu kala boodaya xiriir oo sameynaya oo lagu kala boodaya markuu kuu sheekeynaya markaas wuxuu ku dhahayaa oo kale niyo dumarkan wax jira ma ahan niyo iyaga dhan waxay rabaan inay isku dayaan inay ku maamulaan haddii gabar tahay waxaa ku leedahay niyo raggan adduunka wax jira ma ahan muxuu ahaa Soomaalida ugu sii xun
maba lala heshiin karo cause qofka marka haddii aad dareentid xiriir walba inuu ku feelgaroobayo bulshadiina uu wax saaxiiba lahayn qof walbana uu wax ka sheegayo marka waxaa la rabaa haddii aad famil ama asxaab la tahay si hoose inaad u dhageysatid cabashadiisa kadibna caawin caafimaad aad la raadisid qodobka xiga markaas oo kan sagaalaad noo noqonayo waxaa waaye xanuunada la yiraahdo waa xanuuno oo badanaa cilaaqa la leh cuntooyinka eating disorder Allah marka badanaa xanuunadan gabdhaha ay ku badan yihiin waxaa waaye jirkooda ayaysan raalli ka ahayn oo aysan ku faraxsanin qaabka u yaalo iyadoo laga yaabo inay caato tahay muraayadda horteeda istaagaysa waxay leedahay war ani waa caylina xitaa miisaankeeda waxaa laga yaabaa inuu yahay 69 kiilo ama 65 kiilo 70 kiilo normal BMI-ga iyadoo ku jirto maanta dhan waxay dhahaysaa ani waa caylina marka waxaa dhacayso laba nooc ay u jiraan noocna waxaa waaye baahi ay isku dilaysaa sida baahi ay isugu dilayso markii dambe waxaa dhacayo cunno aanan caadi ahayn oo zaa'id ah hal mar cunaysaa isla markii cuntada ay dhammayso waxay xasuusanaysaa dambiyaa gashay maxaa halahan oo cunto alla waa cayili doontaa way ismatajinay marka laba nooc ay u jiraan anorexia nervosa iyo bulimia nervosa ayaa la yidhahdaa marka waxaa waaye nooca labaadna waxaa waaye cunno ahaan ayay waxay isticmaalaysaa waxyaabo aan cunno ahayn iyadoo markaas ka raadinayso ama jirkeeda inuusan weynaanin ama u aragto fan iyo habi waxyaabo plika la yiraahdo ay isticmaalaan qaarkood waxaa laga yaabaa noocyeen muxuu ahaa xanuunadan oo la xiriiro eating disorderska qaar ka mid ah runta aad cajiib u yihiin waxay cunaan wax aanan food ahayn waxaa laga yaabaa qof inuu musmaar cuno waxaa laga yaabaa inuu qalin cuno waxaa laga yaabaa subxaan allah yani waxyaaba ku sheegaya wax practical aragna waaye hadda intaa masar joogayna keysa wuxuu ka dhacay jaamacadda qaahiro isbitaalkeeda qasar gacayni qofa waxaa laga soo saaray 100 iyo dhowr musmaar ay caloosheeda laga soo saaray oo ay laqlaqday ugu dambeyntii waxaa la ogaaday inay qabtay eating disorder mar dhaweydna waxaa arkayay qof cunay qaatay qalimaan ilaa 40 qalin oo kale markino qof cunay isla markaasna jarjarkii oo in la jarjaray dhagihii telefoonka la jarjaray laga soo bixiyay caloosheeda video wuxuu ahaa aad runtii cajiib u ah waxaa soo dhigi doonaa videogaas qaybteeda oo telegramka ah dr adnan abdallah telegramkeyga videogan hoostiisa idin soo dhigaya videogaas oo qofka 40 iyo dhowr ka qalin calooshiisa laga soo bixinayna waa idin soo dhigaya marka waxay qabayn qofkaasna wuxuu qabay eating disorder marka eating disorderka qeybaha oo waxyaabaha plika ama waxyaabahan oo la yiraahdo non food ah dadka cuno Soomaalida badan ay ku yar yihiin inkastoo la arkay dad waxyaabo aan cunno ahayn caro tin muxuu ahaa qashin waxyaabo kale dad cunay waa aragnaa hadda koor Soomaalina way ka dhacday waxaa la yiraahdaa bizarre tin ay maanta dhan tinta markii gabadha shanlaysato kuuska soo baxo tinteeda way afka gashanay biyo ku laqaysaa ugu dambeyn marka waxa dhacayo tintii isku tagtagayso mindhiciradaha xiidmaha ayuu xiraya marka qaliina loo baahanaya yaanan ku sii fogaanin laakiin dhinacyada kale oo gabdhaha miisaankooda dhib ka hayo iyadoo normal ah waxa soconayso dalka aad ugu jira marka hadii aad aragtid gabadhii oo miisaankeeda caadi yahay laakiin ku mashquulsan miisaankeyga zaa'id waaye inay saacatay rabaa baahiya isku dilaya waa ismatajina waxyaabo noocaas oo kale ah in la raadiyo muxuu ahaa caawin aad muhiim u tahay qodobka ugu dambeeya markaas oo kan tobanaad ah oo markaas noqonayo waxa la yiraahdo suicide ama self harm qofkii waa heerka ugu dambeeyay gaartay wuxuu ku fikiraa inuu isdilo badanaa marka qofka inuu heerkaas gaaro hal mar ma iska timaado waxay ka timaadaa waxyaabo isku tagay مثلا wuxuu qabay niyad depression uu qabay muddo dheer ma la fahmin ma la daaweynin ma laga agdhawaanin walwal iyo walaac uu qabay stress ku fogaaday waxyaabahaas marka haddii ay isku tagtagaan oo mood disorderki depressionki anxiety stresski waxyaabahaas qaar kamid ah ama laba ama saddex kamid ah haddii qofka isugu tagaan qofkaas bulshadii ka dhaxbaxaya kaligiis uu noqonaya kaligiis markii uu noqdo fikir dheer uu galaya fikir dheer markuu galo caawimaad ayuu waynaya caawimaad markii uu waayo isla hadalkaas waxay gaarsiinaysaa adduunkan sabab loo noolaado ma lahan sabab aa u nooshahay adiga maba jirtaba inaad dhimatid ayaa ku dhaanto waxaa la arkayaa marka qofkii uu suncaday qofkii oo markiinoo isdaldalay oo xirig inuu kor surtay isdilay anaga marka ka bulsho ahaan waxaan laga baahan yahay qofka haddii hadaladiisa mar ay soo galaan wallahi waxaan ku fikiray inaan isdilo waaw waa calaamad weyn waay macnaha red flag ayaa la yiraahdaa calaamadaas gaduudan
maalinku ku yiraahdo qofkan wallahi ina isdilan ku fikir ilaahay ay maqlaayo qofkaas nolosha quus ayuu ka joogaa u dhawow dhageyso la raadi caawimaad marka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan laba arin ku daro maadaama aan ka hadalnay 10 qodob ugu waaweyn arimahan iyo xanuunadan dhimirka waxaa jiro sababo ma arkin oo qofka dhibaatadan ku sii fogeeyo waxaa ka mid ah ugu horeyn waxa la yiraahdo stigma qofkii in la takooro qofkan haddii dabeecad xumo lagu arkay haddii isla hadal lagu arkay haddii walwali walaac badan lagu arkay haddii dadka inuu ka dhex baxay la arkay bulshadeena dhibaatada jirto waxa way hebel waa waalan yahay hebel ama heblaaya qof kale waxay u sheegaysaa hebel niyaho wuu ku dhuftay qac uu noqday wuu waalan yahay hebel qac uu noqday heblaaya qac ay noqotay wuu waalan yahay fart ku taagaas qofkii waxay ku keenaysaa inuu sii fogaado labo qofka waxyaabaha fogeyn karo waxaa ka mid ah haddii la waayo ama aysan ka jirin deegaanka xarumo lagu daaweeyo dhimirka qofka haddii uu markin uu waayo accesskaas oo dhakhtar dhimir heli waayo qof la taliyo heli waayo wuu fogaanayaa tan saddexaad waxaa waaye faqriga iyo baahida oo bulshada dhexdeeda arinta way sii badisaa qofkii haddii asagoo marka hore niyajab dareemayay dhaqaale xumo iimaankiisana hadduu yaryahay dabcan qayb ay ka tahay dhaqaale xumaha muxuu ahaa saxaabadii iyo xilligii nabiga dad badanaa aad u baahnaa laakiin iimaanay lahayn qofka hadduu iimaankiisa yaryahay oo ay dhaqaale xumo ugu darsanto in dhimirkii uu qaado fogaado ayaa imaanayso tan afraad waxa waaye taqaaliidda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin bulshada way fogeynaysaa qofka sababta waxaan qodobkan usoo qaadanaya waxaa waaye dadkeenna hebel maskaxda iyo arrimaha haddii laga haysto jinni ah ayaa la leeyahay waa la wadayaa tiim rusheeyaa loo geenayaa garaacisa ku bilaabanayso bog iyo xabadkaa laga tumayaa qofkii oo laga yaabo 10 kiniini inuu ku filnaan lahayd iyo isbuuc oo talin la siiyo xitaa daawo inuusan u baahnayn oo markin oo psychosocial support iyo counseling caadi ah lala fariisto la wareysto u baahnaan lahaa muxuu ahaa jirkiisa haddana trauma u imaanayso waxaa isugu darsami doonto traumadii uu ka soo qaaday rusheeye traumadii oo qac waaye traumadii jina haayo traumadii iimaan ma lahan kelmaddan niyeysan iga fakanin qof iimaan leh dhimirka ma ka jirado waaw tanna waa mushkilad kale marka saaxiibayaal walaalayaal inta kanaalkeena ku xiran waxaa idinka codsanayaa videogan ina share gareysaan bulshada uu gaaro macna dhimir qof walba ku dhici kara shiiqo ku dhici kara shaydaan ku dhici kara fanaan ku dhici kara macallin dugsi ku dhici kara dhakhtar ku dhici kara yani qof walba ku dhici kara hooyo ku dhici kara cunugu ku dhici kara aabo ku dhici kara anyone gabar iyo wiil ma kala lahan muxuu ahaa yaraan iyo da ma kala lahan adiga maanta caafimaadka qabo kanaalkan si nadiif ah u daawanayo anigan videogan ku soo gudbinayo laga yaabaa inay soo wajahdo horey weyn oo soo wajahday stresskan aan ku sheegayo depressionkan aan ku sheegayo anigoo isoo maray adiga daawanayo ku soo maray saaxiibadii kamerada gadaasheeda taagan uu soo maray laakiin qofkii waxa laga yaabaa ama inuu dhakhtar raadsaday ama inuu ilaahay u dhawaaday oo waxyaabihii is ilowsiya laga yaabaa oo bulshadina soo dhaxgalay waxa uu xalka yahay mar walba waxa waaye wacyigelinta waxbarashada iyo markino wacyigeena inuu sara noqdo videogan arin kale kagama golliha oo aanan ahayn inaa wacyiga bulshadeeda qayb uga qaato dhimir waa wax jiro walaalayaal aan wada ogaano si wada jir ahna aan isugu caawino ka bulsho ahaan xanuunada dhimirka waxaa u baahannahay dhaaya gaar inaan u yeelano faham gaar inaan u yeelano isla markaasna daryeelkiisa isla fahno daryeelka marka muxuu noqonayaa daryeelku wuxuu ka bilowdaa qofkan wuxuu roo caawin haddii aa walaal u tahay ama waalid haddii aa u tahay saaxiib adiga ka bilow caawinta la hadalkaaga hadduu wax ku qaato falilah alxamdu haddii adiga wax badan aadan ka garanaynin wad daawada waxaa qayb ka ah sheekh in loo geeyo oo qur'aan lagu tufo daawada ayay qayb weyn ka tahay daawada waxaa kaloo qayb ka ah inaa u geysid dhakhtarka ku takhasusay xanuunada dhimirka uu la tacaalo la hadlo la sheekeeyo daawada ku habooneed uu siiyo marka bulsho caafimaad qabto ayaa wax soo saar yeelato bulsho caafimaad qabto ayaa nafsadooda iyo dalkooda iyo dadkooda intaba horumar gaarsiiso anigoo markuu sii dheeraanaynin intaasan ku ekeenaya haddii marka halahan aan la soo gaartay runtii waan kaaga mahad celinayaa sabarka halahan ku soo gaartay videogan mar kalena waxaan kaa codsanayaa haddii aadan ka mid noqonin saaxiibada ku xiran bartaan fadlan kanaalka ku soo biir ee subscribe sar
muuqaalkaana ku caawi like inaa saartid si uu u gaaro dad fara badan oo adiga oo kale ah mahadsanid waxayna inoo ahaanaysaa insha allah muuqaalkan muuqaalka xigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh